maayarka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraado maanta la hadlayay telefishinka Star TV ayaa waxa uu ka hadlay in mashiinka labaad ee shaybaadhka Somaliland ee xanuunka coronavirus ee dawladda Somaliland loogu deeqay in wasaaradda caafimaadka Somaliland ay tixgelin u sameysay codsi ka soo yeedhay kaasoo in la keeno gobolka Togdheer. maayarka ayaa waxa uu mahadnaqay madaxda wasaaradda caafimaadka Somaliland ugu horeeyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi waxaana uu tilmaamay in ay tixgelin u sameeyeen codsigoodii. maayarka oo ka hadlaya ayaa yidhi mishiinkii labaad ee shaybaadhka masiibadan la yiraahdo COVID-19 inuu wadanka soo galay ayaanu codsi sii dhiibanay aanu cida wasaaradda caafimaadka haday tahay iyo guddida heer qaran iyo madaxweynaha qaranka ba haday tahay aanu codsi u hormarinay in ay ku haboon tahay mishiinkaas in la soo dhigo gobolka Togdheer degmada Burco si transit kan dheer qofka maartay dhiigiisa lala transidayo inta badan uu sii soconayo muddada maqnaanayo maartay looga baxo oo gobolada bariga oo dhan lagu kontrolo halkan lagu kontrolo oo testkooda lagu qaado taas awgeed codsiga waa horumarinay saaka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa agaasimaha guud wasaaradda caafimaadka Dr. Xergeeye oo hadalkaygii shalatay iyo codsigaygii soo dhaweeyay sheegayna mishiinkii inuu yaalo khubaradiina ay gacanta ku hayso codsiga aanu codsanayna ay aad iyo aad u tixgelinayaan sheegay Dr. Xergeeye aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa isaga iyo cidii kale ee hawsha maartay ku hawlanba waxaan isleenahay waa jawaab aad iyo aad u degdega sidaas oo kale markaa shaqadu ay ku soconaysaa in maartay la isu dhagal nuglaado wixii xaq la isugu leeyahay waana mahadsantiin agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo guddida heer qaran iyo madaxweynaha qaranka intabana waanu mahadnaqaynaa waa Khalid Bakeyle wararka fogaan araga xorta Star TV Burco.